watahay dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xogta iyo xulashada wararka ee maanta waxaana kusoo qaadan doonaa inta badan dhacdooyinka ugu muhiimsan gaaska Afrika iyo caalamka. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markuu bixiyeen dhammaan qaxootiga Itoobiyaanka ay ku nool dalkiisa dib loogu gacan geliyay maamulka Addis Ababa kadib markii xukuumadda TPLF ka codsatay in dowladda Djibouti kala shaqeyso dhanka ammaanka. warbaahinta madaxa bannaan ee dalka Djibouti ayaa tabisay in ciidamada ammaanka ee dalkaasi Djibouti jirdil xoog leh kula kaceen dad qaxooti Itoobiyaan oo inta badan ku nool xaafadda Balbala ee magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi. sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markuu bixiyay in hoos loo dhigo khadka internetka iyadoo dowladdu fulinaysa dalabaadka dowladda dhexe ee dalka Itoobiya oo codsatay in Djibouti hawada ka saarto khadka internetka. lamana oga sababta ay dowladda Addis Ababa u codsatay in dowladda Djibouti xidho aalada khadka internetka ee dalkeeda. madaxweynaha gobolka Amhara Geedu Andargacho ayaa shaqada laga caydiyay kadib markii lagu eedeeyay inuu wax ka qaban waayay qalalaasaha iyo rabshadaha looga soo horjeeda qoomiyadda Tigray gaar ahaan xisbiga TPLF ee xukunka dalka Itoobiya xooga ku haysta. kulan degdeg oo yeesheen guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga NDM ayaa lagu sheegay in Geedu Andargacho shaqada laga fadhiisiyay isagoo talada xisbiga iyo arrimaha maamulka gobolka uu la wareegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya Demeke Mekonnen. warar xogogaal ayaa sheegayay in kooxda TPLF amar ku bixisay in madaxweyne Geedu la caydiyo. waxyaabaha cudurdaarka looga dhigay madaxweyne Geedu ayaa lagu sheegay isticmaalka awood xad dhaaf ah iyo inuusan waxba ka qabanin qalalaasaha iyo rabshadaha ay dhigayaan dadweyne ka cadhaysan magaalada Gondar oo la sheegay inay ka mid noqon doonto ismaamulka qoomiyadda Tigray ee xukunka dalkaasi haysta muddada 25 sano. dibadbaxayaashan ayaa la sheegay inay xoog kula wareegeen xarunta xisbiga oo gabi ahaanba la biliiliqaystay kadibna laga taagay calankii dowladii Dhergiga halka dab la qabadsiiyay calanka ay hadda leedahay dowladda Itoobiya. warar kale ayaa iyaguna sheegaya in la xadiday awoodda madaxweynaha ee aan shaqada laga caydinin waxaana howlaha muhiimka ah ee qorsheynta iyo ka go'aan gaadhista la wareegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ahna gudoomiyaha xisbiga NDM oo ka mid ah bahwadaagta xisbiga EPRDF. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya inuu sare u kacay kala shakiga iyo is-aamin la'aanta u dhaxaysa xisbiyada ugu awooda badan xisbiga isbahaysiga EPRDF ee NDM iyo TPLF. dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda Itoobiya ayaa la arkayay iyagoo lulaya astaamaha jabhadaha hubeysan ee dagaalka kula jira dowladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya. qoomiyadda xabashida ayaa waxa ay la soo bixeen calankii dowladii Dhergiga ee uu hogaamin jiray Mengistu Haile Mariam halka ay qoomiyadda Oromadu lulayeen calamada jabhadda OLF. xaaladda ammaan ee dalka Itoobiya ayaan wanaagsanayn waxaana la sheegay in dadka dibadbaxaya ay bartilmaameedsanayaan dadka u dhashay qoomiyadda Tigray iyadoo la sheegay in tiradadii ay ku dhinteen isku dhacyo u dhaxeeya labada dhan. sidoo kale hantida qoomiyadda Tigray ayaa la sheegay in la biliiliqaysanayo iyadoo taaga laga dhigtay dukaamada iyo goobaha ganacsiga ay leeyihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda qoomiyadda Tigray ee ku nool gobolada Xabashida iyo Oromiya. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in dibadbaxyada ka socda dalkeedu yihiin kuwa sharci darro isla markaana ay gacan bira ku qaban doonto. lamana oga xaaladdu sida ay noqon doonto inkastoo wadamada reer galbeedka lagu eedeynayo inay la safan yihiin kooxda TPLF. Happy
lahayn gacanta cadowgaaga dhigo hawshani lama gabe gadii sayid maxamed kama sabiid lagu quba hawshani lama gabe gadii sayid maxamed kama sabiid lagu quba سوري ولا يقول في يوتاقات مبورة كيسك أفريكا حقيقة قوية أنون قبل ملايين أنون على نقود كسوري ولا يقول في يوتاقات مبورة كيسك أفريكا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa u aanbabaxay magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka kilalka booqashada ay wafdiga madaxweynuhu ku tagayaan magaalada Jigjiga ayaa tii ugu horeysay waxaana la filayaa inuu halkaasi wada hadal kula yeesho kooxaha matala siyaasadda maamulka kilalka wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa garoonka diyaaradaha ku sii sagootiyay madax ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa horay u tagay magaalada Jigjiga sidoo kale waxaa tagay qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya lamana oga sababta uu xilligan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarka ugu baxay magaalada Jigjiga ee caasimadda maamulka kilalka dowladda Turkiga ayaa maanta uga digtay Mareykanka in haddii aysan soo masaafurin wadaadka deegaan gobolka Benzalfi ee Fatihullah Gulen intaasi ay dhaawac xoogan gaarsiin doonto xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Mareykanka haddii Mareykanku uusan soo gacan galinin Gulen waxay taas macnaheedu tahay in xiriirka labada dal ay ka doorteen argagixiso waxaa sidaas yiri wasiirka cadaaladda ee dalkaasi Turkiga Bekir Bozdaq dowladda Turkiga ayaa si soo noqnoqosho lagu cadaadinaysa maamulka Mareykanka inay soo diibaan Fatihullah Gulen tan iyo 15 bishii July markaasi uu dhacay afgambigii dhicisoobay ee militariga dalkaasi doonayeen inay talada kaga tuuraan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo dowladiisa toddobaadkii tagay ayaa yaqaano matalaya Gulen waxa ay sheegeen in dowladda Turkigu aysan haynin wax cadayn ah oo muujinaya in Gulen ku lug lahaa afgambigii dhicisoobay ee dalkaasi sidaa darteedna ay tahay inaan la masaafurinaynin xukuumadda Washington ayaa ku adkaysatay in hanaan masaafurin loo bilaabo ay qasab tahay in Turkiga uu bixiyo cadeymo muujinaya in Gulen uu ku lug lahaa afgambigii ka dhacay dalkaasi Turkiga dhanka kale dowladda Turkiga ayaa wanaajinaysa xiriirka ay la leedahay wadamada gobolka iyadoo maalinkii shalay ahaa uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan booqasho ku tagay dalka Ruushka waxaana kulan muhiim la yeeshay dhigiisa wadanka Ruushka madaxweyne Vladimir Putin
intaasi waxaa ku eeg barnaamijkeeni xogta iyo xulashada wararka maanta oo aan ku soo qaadanay wararka ugu xiisaha badan caalamka gaar ahaan geeska Afrika.